laanta dambe baarista booliska Soomaaliya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ilaa 28 xubnood oo ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaasi oo loo haysto eedeymo isugu jira amar diido iyo musuqmaasuq. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste. ciidamo boolis oo tiradoodu gaarayso 28 xubnood oo isugu jira saraakiil xigeen iyo dabley ayaa xabsiga dhexe loogu xiray sababo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin sida uu tilmaamayo taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed ee CID General Bishaar Abshir Geedi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan kuwaas oo dhammaantood u xiran falal isugu jira musuqmaasuq iyo amar diido habac ku keentay habsami u socodka ciidanka booliska qaybo ka mid ah sidaas oo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo kamida ciidanka booliskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto ciidanka booliska waxayna ku socota baaris markii baaristoodu ay dhamaatana ciddii la mid noqota ciidanka booliska ee xabsiga dhexe jira inay kuwaas maaragtay ay runtii ay daris la noqdaan ciddii falalka lagu soo eedeeyey lagu waayena waxay dib ugu noqon doontaa shaqadeeda. General Bishaar Abshir Geedi ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo caadeystay inay wadooyinka magaalada Muqdisho shacabka uga qaadaan lacag sharci darro ah kuwaas oo xusay inay qaarkood soo qabteen iyagoo falal caynkaas ku guda jira waxaana uu dhanka kale qaybaha bulshada uga digay inay joojiyaan lacagaha aan munaasabka ahayn ee howl fududeynta loo yaqaano ay ciidamada siinayaan cid dambe oo laga yeelayo lacag sharci darro inay ku qaado magaalada Muqdisho gudaheeda iyo guud ahaan goobaha sida sharci darrada ciidamada qalabka sida ay shacabka uga qaadaan lacagta baada oo sharciga ahayn cid dambe oo laga aqbalayo oo lagu dul qaadanayaan lama arko arrintaas waa ka digaynaa kuwana asbuucan aan ku soo qabanay kuwa kale tan waa daba soconnaa waxaan leenahay arrintaa laga fogaado cid loogu dul qaadanayo in hubka iyo qalabka iyo muuqaalka ciidamada sharafta leh ee qalabka sida in mid liita oo caqliga ka daboolan oo dhaawac u geerisanaya ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed midna aan garan karin inuu annaga inta dhibaatadaas dhexdeena ka sameeyo haddana magaceena asagoo sito oo nagu dhex dhuunto cid loogu dul qaadanayo ma jirto shacabka waxaan ka codsanaynaa ayagana adinka laftirkiina waxaan dareemaynaa inaad musuqmaasuqa ka qayb qaadataan oo adinka qof markii la soo xiro eedeysanaa inaad isku daydaan inaad inta ka daba timaadaan aad ka shaqaysaan inaad ku raadisaan inaad lacag iyo ku bixisaan wax isdabamarin si sharcigu uusan u shaqay shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay arrintaas adinka laftirkiina waa in kaga digayna taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliska ayaa guud ahaan taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir ku adkeeyay inay ka waantoobaan arrimaha la xiriira isdabamarinta kiis dacwadeedyada soo gaara kuwaas oo ay madmadow badani ku jiraan marka ay u gudbinayaan garsoorka arrintaas oo uu sheegay inay shaki badan abuurayso taliyaha saldhigga degmada booliska ee degmada taliyaha ka waxaad u taagan tahay xeerlaali adiga xeerlaalinta mas'uul uga ah baarista galkii adiga aad xafiiska aad joogto aad ku soo qurxin weyso oo khaladaad iyo wax isdabamarin iyo corruption ay soo dhex galaan markii galkaas loo gudbiyo garsoorka cid kasta oo loo geysaa masixi karto waxaan leeyahay baara kasta wuxuu mas'uul ka yahay xeerlaaliyaha ama qaranka ama xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sidaas awgeed gal dacwadeedada aad samaynaysaan ha laga ilaaliyo wax isdabamarinta iyo musuqmaasuqa si ay ugu fududaato cadaaladda iyo garsoorka in shaqadaas ay si habsami leh ayaguna u gutaan meeshaasna laftirkeeda waxaan ka dareemaynaa waxyaalaha aan ka digayna wax kamid ah ugu dambeyntii taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliska Bishaar Abshir Geedi ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan askar ka tirsan ciidanka booliska oo la maqan qalab ciidan oo isugu jira hub iyo agabyada kale ee uu boolisku ku howlgalo kuwaas oo uu soo jeediyay baaq ku aadan in hub kasta oo ku jira gacmahooda ay dib ugu soo celiyaan talisyada laga xukumo